السلام عليكم أصحاب قارئة وهذه السلام من البوجوكتين محاربة أرين مهم إن أيدين شيء حالة شرع مسوار واسمع عن بدأ أذكر عن حالة حفلة أسل جوجني تلفون كذي جاجر كذا أنا يمكن تخفى بناي كنت أجنبي هذه سيدي إلا هذا كتاب كلها هي حالة مركب بحث حالة داي والأفضل قارئ حداي والد قارئ حداي والستا أنا إلا هذا أبي إنه ما شاف شيء ما قال تلفون كموبايل كوميشن جري سوق عسى ولا يا محايد كعب سنة قف على قف إنه سحريريو والله يقول مسكين وما قال وحلا هستو مالي عادي ما كلا كنا مثل أغاني دبابة بدنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga waa idin salaama meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin waa markale walaashiin khruuja ugu horeyn hadaa janaal ku cusub tahay subscribe saar hadaa hore noola joogto qaybta leega naga dhis fariimo waxaa qabtaan kommentiga noogu reeba soo dhawaada walaalihii qaaliga waxaana soo gaaray war degdeg oo sheegayo in la afduubtay Miss World gabadhii oo TikTok caanka ka ahayd Miss World inaa wada garanaysiin ayaa rajeynayaa gabar oo asxaabteeda kamid ah iyo dhowr qofood oo asxaabteeda kamid ah ayaa barta TikTok ee caanka ka ahayd kusoo baahiyay in la afduubtay ama waxay dhaheen waa la afduubtay ama waa la dilay wax saas ay sheegayeen laakiin wax xaqiiqo ma hayaan umaleymaayo hadda in Muqdisho la isku afduubanayo alxamdulillah sida hore way dhaanta waa noo nabad ilaahay nabad ha nooga dhigo wadankeena aad iyo aad ayaan u jecelnahay gabadhaas walaasheena hadii waxay sheegayaan ay run tahay ilaahay ha ka soo badbaadiyo iyadoo nabad qabta ilaahay dib ha u soo celiyo hadii waxay sheegayaan prank iyo sheekooyin isla og yihiin ee tahane inkastoo dadkan dhalinyarada la isku halay karin prank hadee rabaan waaye ay dhahayaan ilaahay prankiga naftirkiisa ha ugu dhigo afduub wax fiican maaha laakiin ma fiicno in waxyaabahaas camal waxyaabo lagu kaftamo la isku bari ka maalin way kugu dhici karaan waxyaabo prank laga dhiga maaha laakiin ilaahay hadee runta soo badbaadi hadee prank tahane dib malahan maxaan dhihi jiray muhiimada waa inay nabad qabto walaashayda macaan waxaan leeyahay ilaahay meel walbo joogto nabad ha kugu siiyo hadii waxay sheegayaan asxaabtaada iyo runtan ilaahay ku soo samceliyo oo ku duceyneynaa insha Allah adikana asxaabteyda qaaliga u duceeyo waa gabar walaashiina hadii wax la sheegayo run tahay wax oo lagu kaftamo kulay maaha waa wax war naxtin leh qof dhan oo afduubtay sheeko sahlan maaha waa hadii ay run tahay xaqiiqo tahay hadii iska baashaalayaan dib malahan laakiin waxyaabaas camal mar dambe ha ku baashaalina ayaan dhihi lahay marka asxaabteyda qaaliga TikTok ayay soo fiidiyoyaal soo duubeen TikTok aan ku arkay si horeba fiidiyowga hordhaciisa u soo aragteen dad waaweyn qof kulay ma dhahayaan waa la afduubtay iyo waxyaabo saas camal marka ilaahay soo nabad celiyo ayaan dhihi lahaa khruuj ahaan waan ka naxay wallaahi wax laga naxana waaye wadankeena alxamdulillah waa jecelnahay in la isku afduubtana ma rabno ilaahay nabad ha nooga dhigo inta qofood oo joogto ilaahay nabad ha ku siiyo waxyaabaas camal dadka day maqlaan argagax ayay ka sii qaadayaan fiigtaal ayaa ku dhacayo cabsi badan ayaa soo food saarayso marka ilaahay nabad ha ku siiyo wadankeena wax noo dhaama malaha ani ahaan waa u xiisay marka waxyaabahaas hadee kaftan yihiin mar dambe cashaan sameeyna dad badan hadda waxaa jira argagax oo ka qaadayo wadanka joogo cabsanayo oo iskuulada iyo meelahaas inay aad waayaan dhici karto ka cabsadaan gabdhaha marka waxyaabahaas hadee kaftan yihiin cashaan mar dambe ha sameeyna maanta wayba dhacday hadee runtaan ilaahay ha ka soo nabad celiyo ayadoo nabad qabto gurigeeda ilaahay ku soo celiyo intaas ayaa dhihi lahaa asxaabteyda qaaliga waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga fiidiyoyaal badan ayaan idin soo wadaa cunto karinta qurxinta insha Allah waa soo wadaa marka fiidiyowga duu ku soo gaaro share garee kaliya ha isku koobin mar walba waa idin sheegayaa hadduu fiidiyow ku soo gaarina subscribe-ka like ha ka iloobin insha Allah waa inoo nagasta fiidiyow kale qurux badan walaalahayga qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mac salaama.